Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena ka xuruu fakhriga. Meel kasta ee adduunka ah ka joogtiin waa salaamantihiin. Haddii aad inagu cusub tahay soo dhawow, haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad mar waliba inoola joogtaan oo inoogu xiran tahiin. Maanta waxaan idin wadaa hadduu eebbe idmo si 11 cunno oo kor u qaadaysa xusuusta maskaxdaada. Haddaba inala soco. 1. Malaayga. Malaayga waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo caafimaadka. Wuxuu kaleento la xiriiraa in uu sare u qaado xusuusaha maskaxda. Malaayga sida aan u ognahay waxa ku jirto faa'iidooyin badan. Insha Allah haddii aad doonaysaan gees ayaa idinkaga soo hadli doonaa. 2. Waxa kaleento timirta. Timirta waxa ay ka mid tahay masoo lagu sheegay waxyaabo badan oo faa'iido u leh jirka bini'aadanka iyo maskaxdaba. Timirta waxa ay ka mid tahay waxyaabaha loo isticmaalo in sare loogu qaado xusuusaha maskaxda. Inta badan ay dadka isticmaalaan. Sidoo kale waxaa ku xusan xadiis nabigeena sallallahu alayhi wasallam laga wariyay. Insha Allah iyadana haddii aad jeclaysataan waan ka soo hadli doonaa aad naga soo codsataan. Waxaa kaleento ku xiga canabka kan buluuga ah. Canabka buluuga ah isagana wuxuu ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo siyaadinka mase kordhitaanka xusuusaha maskaxda. Kan afaraad ee loo isticmaalo cuno ahaan afakaadhada. Afakaadhada waxa ay ka mid tahay cunooyinka loo isticmaalo caafimaadka haddii ahaan lahayd kareem ahaan, haddii ahaan lahayd saliid ahaan iyo haddii ahaan lahayd cabitaan ahaan iyo si caadi in loo cunaba. Insha Allah. Mideeda kale waxaa ku xigto looska. Looska sidaan u ognahay wuxuu u fiican yahay maskax ahaan. Inta badani waxaa loo isticmaalaa in sare loogu qaado xusuusaha maskaxda. Waxaa kaleento faa'iido leeyahay in uu siyaadiyo nuurka indhaha. Looska faa'iidadiisa inta ku soo koobi karno oo waxaa ku jirto borotiin intiisa badan. Looska waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo caafimaad ahaan jirka bini'aadankana u wanaagsan. Waxaa kaleento ku jirta liimo oranjiga. Liimo oranjiga waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sare u qaada maskaxda. Anagana hadda u soo qaadanay cunooyinka 11 kale ee ka mid tahay. Insha Allah haddii aad baaritaan dheer u baahataan waad ila soo xiriiri kartaan. Waxaa kaleento jira bocorka, bocor cadaha mase bocor katiitos oo qof walba u yaqaano. Bocor cadaha mase bocor katiitoga waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo maskaxda in sare loogu qaado oo wuxuu ka mid yahay qofka wuxuu siiyaa jirka wuxuu siiyaa caafimaad. Sidoo kaleente qofka maskaxda ka jiran sidoo kaleente dadka hurdo la'aanta hayso iyadana wuxuu u yahay in uu hurdo siiyo oo wuxuu ka mid yahay dalagyada loo isticmaalo in maskaxda lagu dejiyo. Sidoo kaleente wuxuu sare u qaadaa kordhinka xusuusaha. Sidoo kaleente waxaa ku jiro ukunta ma soo koobi karno faa'iidada caafimaad ee leedahay balse hadda anaga waxay inoogu jirtaa qaybta koritaanka maskaxda xusuusaheeda. Insha Allah waan ka soo hadli doonaa haddii aad jeclaysataan. Waxaa kaleento soo qaadanay hadduu eebbe idmo noo tahay kan 9aad kafeyga iyo shaaha. Kafeyga ama shaaha waxaa loo adeegsadaa inta badani in maskaxda ay shaqeyso. Sidoo kaleente waxaa loo isticmaalaa in lagu siyaadiyo maskaxda. Inteeda badan dadka wax akhrinta jecel inay cabaan shaaha mase kafeyga. Sidoo kaleente waxaa kaleento cunooyinka loo isticmaalo bataatiga mase bataati macaanka sida loo yaqaano qof balbi Soomaali u taqaano. Geedkani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha loo isticmaalo in maskaxda sare loogu qaado una ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo xusuusaha in uu kor u qaado.
waxaa ku jira waxyaabo badan aana lasoo koobi karin, faa-iidooyin caafimaad oo badanna wuu leeyahay. waxaa kaleento uu ku badan isaga markii loo fiiriyo as caafimaad ahaanna wuu u fiican yahay. haddaad jeclaysato isticmaalkiisa soo tijaabi adigaba insha Allah waa arki doontaa. waxaa kaleento ku xiga chocolate-ka kan madowga. chocolate-ka madowga waxa uu ka mid yahay isagana waxyaabaha siyaadiya xusuusta maskaxda sarana u qaada. mideeda kaleente waxaa loo isticmaalaa in xusuusaha maskaxda kor loogu qaado. insha Allah haddaad jeclaysataan adigan waa nala soo xiriiri kartaa. ha inaga hilmaamin sheerta, commentiga, laaga iyo subscribe-ka, intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan naga faa'iiday, inagana aan wax ka faa'iidno hadduu eebbe idmo. salaamu calaykum.